وعلى wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijkeeni dhabka hadal qaybtan haduu rabbiidmo waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale qaybtan waxaynu ku eegi doonaa TPLF oo guulo ka sheegatay dagaaladii ka socday gobolka Wollo qaybtan waxay la qayb qaadan doona ilkaasi soo dhawo marka hore bal waxaynu ku hormareynaa waxa jira duqeymo loo geystay magaalada Maqale hadaba ma jirtaa cid ka hadashay hadii ay noqoto dawladda ama TPLF وما سنت محمد دقيقة وداوداش عن سلامنا معلومة أكثر من لنا عدة معلومة هاي عدة أي هبين وتاين هبين أكثر من لنا هاي أرد إثيوبيا إن بدل ما نكور هني ضد كنا إن بدل بين السعوديين حالة إثيوبيا يو دجال هذا هذا هالكسرنا السعودة يو حوي مرحلة دي كردونا أي صامرين أو صامين نعيب بدل له إثيوبيا كويالتي هذه النقطة حريرك إثيوبيا إلى هاي dalalka caalamka iyo kuwa dariska haday noqoto dawladnimada noqdo dhaqaale haday noqoto socodkii hadii ay noqoto waxa weeye adigu wax walba oo Itoobiya waxa weeye ama dal waxa weeye dagaal marka ay noqoto saameyn uu ku yeelan lahaa iyo dagaalka waqooyiga Itoobiya uu saameyn ku yeeshay TPLF waxa moodaa markii dagaaladan hadda dambe ay soo qaadeen markii ay soo rogal celiyeen ay soo dhawaadeen gobollo kamid ah Itoobiya sida Axmaarada iyo Cafarta oo dawladdu ay aad u adkaatay inay dib u riixdo oo dib ay ugu celiso gobolkoodii in dawladdu ay isku dayday in ay baldaba marto oo ay xaway Maqale duqeymo ay ka geysto sida aan ka warqabno maalmihii u dambeeyay dawladda Itoobiya waxay qaaday guluf iyo weerar xooggan oo ciriir dhul ah oo ku qaaday Tigreega weeraradaasi ilaa hadda dawladdu maysan ka hadlin wax khasaaraha oo ay geysteen iyo wax maaratay khasaaraha oo ay u geysteen TPLF shalay sida aan la wada socono daawashan aan u tabinay duhuradii ama shalay galab waxay dawladda Itoobiya gaar ahaan ciidankeeda cirka ay duqeymo ay ka fuliyeen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega iyo waliba nawaaxigeeda meelo u dhow duqeyntaasi dawladdu way ka hadashay dawladdu waxay sheegtay duqeyntan inay la beegsatay xarumo TPLF ay ku lahaayeen magaalada Maqale gaar ahaan xarumaha warbaahinta iyo goobihii qalabka u yaaleen ee TPLF waxaan damaga dawladdu inay doonayso maadaama TPLF ay marka ay soo laabteen ay heleen in ay warbaahinta ay adeegsadaan oo ay la hadlaan gobolka iyo caalamkaba ta in dawladdu ay dhabarjab iyo maartay dhibaato ku noqotay si marka bal xogaa dawladdu ay u xadido TPLF in ay wararkooda iyo warbixinadooda ay gaarsiiyaan dunida isla markaana ay helaan warbaahin iyo goobo ay warkooda mariyaan dadmada dawladdu in waxa weeye ay meelihii warbaahinta ay waxa weeye xarumaha u ahay TPLF in waxa weeye ay shalay ay beegsatay dawladdu ma aysan sheegin khasaare rasmi laakiin waxay sheegtay khasaare in ay u geysatay goobihii iyo xarumihii warbaahinta iyo qalabka TPLF ay yaaleen ee magaalada Maqale warbaahinta afka Tigreega ku hadashay waxay sheegeen in dad ay ku dhinteen ilaa 5 qof ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen oo shacab ah TPLF oo ka hadashay duqeymihii shalay loo geystay way xaqiijiyeen in duqeymo loo geystay magaalada Maqale laakiin waxay meesha ka saareen inay jiraan wax khasaare ah oo iyaga soo gaaray oo duqeymahaasi ka soo gaaray ciidanka dawladda federaalka Itoobiya gaar ahaan kuwa cirka ay ka geysteen duqeymahaas ka geysteen magaalada Maqale marka duqeyntan Maqale waxay muujinaysaa in dawladdu hadda ay bilowday guluf horle oo ciriga dhulba ah kaas oo ay ku doonayso in xogaa bal TPLF laga saaro goboladii ay ku sugnaayeen Axmaarada iyo Cafarta isla markaana weeraradan ay wadaan isdaba joog ah iyo waliba soo durkitaankooda ay u soo dhawaanayaan deegaano badan oo Cafarta iyo Axmaarada kuwa Axmaarada kamid ah in maartay la hakiyo oo dib loo celiyo tan lafskeeda waxa u muuqataa inay tahay dhabarjab lagu doonayo TPLF in waxoogaa loo tusiyo in loo doomaray caasimadooda hadii caasimadii loo doomarayna ayagu waxa weeye ciidankan furimaha ku jira waxa laga yaabaa inay isku dayaan in ay caasimadii ay difaacaan isla markaana niyad ahaan ciidankii maadaama caasimadooda loo doomaray aysan furimaha hore hadda ay ka dagaalamayaan aysan ka dagaalami karin laakiin lama ogo kulliba saameynta ay ku yeelan doonto in dawladdu ay sii way doonto iyo in kale maysan wali aysan cadaynin laakiin dawladdu way qirtay in duqeymahaasi ay ka geystay Maqale TPLF koodu way qireen wayna xaqiijiyeen duqeymahaasi inay ka dhaceen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega lana beegsaday xarumo kala duwan laakiin TPLF iyagu waxay sheegeen in ciidan ahaan iyo maamulkoodii oo de maqala ay u tahay xarun inaysan jirin wax saameynaha iyo wax maaragtay dhibaato oo ka soo gaadhay marka laga reebo
dad shacab ama rayidha oo dhibaatada ka soo gaadhay duqeymahaasi oo qaarkood la geeyay oo dhaqaatiirtu xaqiijiyeen isbitaalka weyn ee magaalada Maqale marka xiisad kacsanaan ah iyo cabsi hor leh yaa laga dareemay magaalada Maqale oo muddooyinkii u dambeeyay tan iyo markii TPLF ay soo rogaal celiyeen iyadoo caadi iska ahayd laakiin mar walba dhigto ay taagnayd oo dareenku uu jiray oo mar walba laga cabsi qabay lana aaminsanaa mar uun dawladdu inay maartay soo weerari doonto marka shalay cabsi waxay ku abuurtay dadka caasimada Maqale ee xarunta gobolka Tigreega weerarkaasi waxayna dadku qabaan cabsi iyo dareen ah in dawladdu ay sii wadi karto weeraradan iyadoo oo beegsanaysa xarumaha TPLF sidoo kale tana weeraradan maartay dhankan cirka ee loo qaadayo TPLF gaar ahaan caasimada ay saameyn ku yeelan karto dhibaatada ay ka soo gaari karto dadka maartay shacabka waxa kale oo jirta in TPLF haba yaraatee aysan awood u yeelanin weeraradii cirka ee shal loo qaaday inay iska caabiso waxay ilkaas aad u mahadsan tahay dhanka kale hadii aan eegno gobolka Amxaarada gaar ahaan gobolka Wollo waxa jirtay warar sheegaya in xalay ilaa shalay ay ka socdeen dagaalo waxaan ku ognahay oo mahadsan tahay Wollo waa gobol taariikhi ah oo wuxuu xarumahan jiray boqortooyinkii Itoobiya gobolkan gaar ahaan koonfurta magaalada caasimada oo ah DC xalay waxa ka dhacay dagaal culus dad goob joogayaal oo magaalada ku sugan waxa ay soo wariyeen muuqaalana la helay in magaalada xalay ay ka socotay rasaas aad iyo aad u xooggan wararka waxay sheegayaan in kasta oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin laakiin inay gabi ahaanba gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen oo ay la wareegeen kooxda TPLF oo weerar culus magaalada ku soo qaaday muddooyinkii u dambeeyay TPLF kaabiga ay u saarayeen magaalada nawaaxigeeda ay dagaalo ka wadeen u dhaxeeyay iyaga iyo ciidamada dawladda iyo kuwa Axmaarada laakiin wixii hadda ka horeeyay ma aysan u suura gelin TPLF inay gacanta ku dhigtay laakiin xalay dagaal aad u culus baa ka dhacay dadka gudaha magaalada ku sugnaa oo qaarkood warbaahintu ay la xiriirtay oo ay weydiiyeen bal magaalada iyo jawigeeda iyo xaaladeeda iyo maartay sida uu wax socdo waxay sheegeen in magaalada uu dagaal aad u culus uu ka socdo isla markaana laga maqlayay rasaas aad u culus oo isweydaarsanayaan dhinacyadan ku dagaalamaya oo qaybtii macnaha ciidanka gacan ka haynta magaalada markii hore ama gacanta ku hayeen ay doonayeen inay si adkaystaan oo difaacdaan halka TPLF ay doonayeen inay gacanta ku dhigto warar baa si kari wali inkastoo xog aan sugayno ilaa dhawaama daawadayaasha la wadaagi doonaa in ay la wareegeen TPLF gacan ku haynta oo ay ka qabsadeen ciidamadii Axmaarada iyo kuwii maartay dawladda laakiin wali lama xaqiijin karo ila madax bannaan xogaha waan sugaynaa soo daba dhacayaan laakiin magaaladaasi xalay dagaal aad iyo aad u culus baa ka dhacay xogaha hordhaca waxay sheegayaan TPLF in magaalada ay la wareegtay laakiin wali si buuxda looma xaqiijin karo waana sugaynaa dhinaca anfartana wali iyadana dagaaladu waa ay ka socdaan oo dagaalo culus baa ka socda TPLF iyadoo marba guul ay sheeganaysaa dawladdu waxa aad u yar wararka ay dhanka dagaalka ay ka baahanayso ama ay ka sheegayso marmar bay dawladdu hadlaysaa marka loo eego xilligii hore uu dagaalku bilowday soo ahaa ama dawladdu sida ahayd iyo hadda TPLF hadda waxay heshay warbaahin haday noqoto baraha bulshada haday noqoto warbaahin caadi ah oo labadaba ay ku faafiso wararkooda haday ay doonayso in gobolka ay gaaraan haday ay doonayso in dadka Martubiyanka ay gaaraan haddii ay beesha caalamka ay baaq ay u dirayso marka wararka TPLF waa kuwa isoo daba dhaca saacad kolba inta badan waxa ay sheeganayaan waa guulo weey laakiin guulahadaasi si madax bannaan looma xaqiijin karo ilaa la arko goobaha ay leeyihiin waan qabsanay iyaga oo ku sugan mana jirto warbaahin madax bannaan oo tagaysa goobahaasi ama loo ogol yahay maadaama dhulkan yahay dhul muddo lagu dagaalamayay oo dagaalo ay ka socdaan walina aysan jirin wax saansaan ah oo muuqato dagaaladan ay ku istaagayaan ama ay ku joogsanayaan ama ku soo afjarmayaan warbaahintu way ku adag tahay lamana inta badan dawladda xaggeeda waxa muddo inaysan ogoleen warbaahin madax bannaan ay tagto gobolkaas ama halka dagaalada ka socdaan si bal ay u soo indheeyaan una xaqiijiyaan dagaalka iyo halka uu wax maraya iyo bal guulaha la kala sheeganayo yaa run sheegay yaa been sheegay dagaal markuu socdana dagaalku waa iska khiyaamo weeye inta badan warbaahinta waxa la soo mariyaa warar idoo waxa weeye lagu eriyanayo yaad waxa weeye uu dhahayaa waxa weeye waxaan eriyanayaa cadowgii iyo cidii soo weerartay dagaalka aan kula jirin marka dagaaladu waa ay socdaan wali waxa la muuqdo midowga Yurub iyo Mareykanka waxay ku baaqeen in labada dhinac ay waxba joojin
maartay ay sameeyaan dagaalkana la joojiyo wada hadal arinta lagu xaliyo isla markaana la ilaaliyo xuquuqda aadanaha iyo dadka rayidka inaysan wax dhibaato soo gaarin laakiin tay inta dagaalku u bilowday saameynta dadka rayidka soo gaadhay aad bay u ballaaran tahay dad badan baa ku barakacay kumanaan baa qaxooti ah oo gobolka Itoobiya gudaheeda ku barakacay kuwa Eritrea u qaxay kuwa badan oo aad u badan oo Axmaara iyo Tigray ka sii horeeyay isugu jiro iska daba tagay waxa weeye u qaxay Suudaan marka waqooyiga Itoobiya colaadda ka horeysa ama ka holcaysa oo waliba maalmihii u dambeeyay ay aad xoogaysto dawladdu ay guluf iyo maartay dagaal aad u culus oo cirib dhulaha ay qaaday oo TPLF ay ku beegsanayso iyo waliba xarumahooda meelihii hubka u yaalay meelihii warbaahinta goobihii madaxooda ay fadhiyeen waxa moodaa inuu sii xoogaysto moogiyo inuusan jirin wax ka sooreyna iyo inuu istaagay waxa kale oo jirin inuu ha yaraatee wax kala dab qaadaya labada dhinac oo maartay doonaya in miiska hadalka ay soo yimaadaan labada dhinac halka kala taagan yihiin waa meel aad u kala fog marka in labadooda mid uu reeyo moogi ma muuqatsan ay meel dhaxay isugu imaanayaan ku wada hadlayaan ama ma muuqato wax dhaxdhaxaadina haday noqoto midowga Afrika hadii ay noqoto wadamada reer galbeedka ma jirto waxa weeye xukuumadda Abiy Ahmed waxa moodaa inuuba sas ka qabo hadii reer galbeed noqoto hadda ay isku dhaceen oo xaaladoodu iyo xiriirkoodu uu meel xun u taagan yahay oo waxa weeye xitaa dadka reer galbeedka aysan in badan ku dhicin in Itoobiya hadda ay tagaan oo loo ogoleen bixita marka waan ogaan doonaa dhisiye iyo xaaladeedana wararkayga dambe ayaan dawadaasha kula wadaagi doonaa iyo wixii xogaha ee ka soo cusboonaada iyo haddii dawladduba markale ay maqale ay duqeyn ka geysato waa hagaag daawadayaal aad ayuu u mahadsan yahay ilka case qaybtan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu